wafdigan ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya ee soo gaaray magaalada Cadaado ayaa waxa uu ka koobnaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye, wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Cabdi Kaariye, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Taliya Gorod iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha. wafdigan ayaa markay soo gaareen magaalada Cadaado waxa ay saxaafadda kula hadleen qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole oo hadallo soo dhaweyn halkaasi ka jeediyay. waa dadka dawladda federaalka aad iyo aad u taageersan intaas oo markaan maqribkii la joogay saaka markaan soo wacdeen 4 saac marka inta ka dhaxayda airportka ayaan ku jirnay intaasna soo dhaweyntiina diyaar u ahayn. waxaan rajaynaynaa insha Allah dadku inay hididiilo badan ay ka heli doonaan. wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud Axmed Cabdi Kaariye ayaa halkaasi hadallo ka soo jeediyay waxaana uu xusay in safarkoodu uu ku saleysan yahay sidii xal looga gaari lahaa colaado maalmihii ugu dambeeyay ka taagnaa deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. intaas kadib waa idin nimid waa wada joognaa waa iswareysanaynaa socodkayga iyo safarkayga jidadiisuna waxay tahay dhibaatadii deegaanadan ka dhacday oo aan runtii ka tacsiyeynayno intay ku dhimatay Ilaahay ha u naxariisto dadkaas dhibaatadu dhex martay dhaawaca iyo dhibaatada kale oo dhexdooda taalana Allah bogsiyo dhibkiina meesha ka dhacay aad iyo aad aan uga xunnahay inaan idin la qaybsano deegaanadan dhibaatadii dhacday inaan dawadeedii iyo maslaxadeedii iyo sidii aan loo gali lahaa ayaa socodkeedii safarkeenu u yahay. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye ayaa ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay waxa uuna xusay in maalmaha ay joogaan gobolkan ay u korgeli doonaan xaaladda dhabta ah ee deegaanadii colaadu ka dhacday maalmihii ugu dambeeyay. howlaha wasiirku idin sheegay oo islaaxa iyo dadka dhibaatadu ay kala gaartay oo walaalaha isu soo dhaweyntooda iyo islaaxoodan u nimid insha Allah intii Ilaahay naga karsiyaan iyadana ka qaban doonaa. waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinaynaa soo dhaweynta quruxda badan. waxaan rabaa inaan iraahdo anoo ku dheeraanayn aad iyo aad ugu mahadsantihiin dhibta aad u marteen maanta inaad halkaan noo istaagtaan. safarka wafdigan ka socday dowladda federaalka ay ku yimaadeen magaalada Cadaado ayaa ku soo beegmayay xilli maalmihii ugu dambeeyay ay colaad beeleedyo ka taagnaayeen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. colaadahaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare intaasi ka sii badan. Cabdi Xasan Awowe, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Cadaado.